بسم الله الرحمن الرحيم حاجكو كن يسقال بقول يتاريخ مركي سدن مريسي أيو ميل قال حيا كدن بيسا إسفقا iyo xaaji cilmisaad fiqi oo walaalkiisa iyo xaaji cabdiraxmaan fiqi oo walaalkiisa iyo nin la yiraahdo ina shariif bay ka tageen waxay mareen hargeysa waxay mareen jabuuti badday xeeb qaadeen waxay tageen kanaalkan hadda Suways oo kadib la furay badda cad iyo baddaas Hindiya isaga yimaadaan halkaas lug bay waxay uga gudbeen badda dhexdeeda dhagaxa tiirka ah oo la jabiyay ayay ka gudbeen xadkii bay tageen nimankii nin carab kama soo laaban waa Sheekh Cabdiraxmaan Xaaji Cabdiraxmaan laba ninna Maka iyo Madiina inta u dhaxaysay ku xabaalan yihiin xaajiga kaligiisa ka yimid xaajigu wuxuu ahaa nin wadanka taariikh ku leh buu ahaa allaha u naxariistee madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf baa wuxuu u yeeray ummad badan xamar buu noogu yeeray ummadaas waxay ahaayeen reerka daarood kaliya ahaayeen xamar sidii loo xasilin lahaa waa waqtigii uu yimid buu dadka isugu yeeray waxaa la yidhi bal dad kale inuu nagu jiro soo dhexmara dadka nin walbaba weydiiya halkaas nin aadan gabi la yiraahdo iyo nin xasan yare la yiraahdo baa meel fog ka soo jeeday anigu saasaanay anigu qoladaasaanay waa laygu yimid adeer sukaayo sheeg baa layidhi waxaan ahay baan idhi haddii laba gubeernoo xarbiday goob la kala xaarto gablan weynla-aaneed ragga waa wada galaysaa waa loo gudboonaan hayaa garab bannaanaan gardarre iyo aabi baa ninkii gudanu diidaa geeridu xisaab ma leh hadday gabacoloobaan ninkii aabbihey yidhi baan ahay baan idhi wuu istaagay ninkii nin caluula ka yimid baa wuxuu yihi annaga reer caluula joognaa markii aanu turubka ciyaarayno haadkii lagu boolaya maana adka kale yaanu nidhaahnaa gardarre iyo aabaa ninkii gudanu diidaa inta iyo kaa madaxa ku dhufano wuxuu ahaa nin gabagiisu taariikh lahaa gar ninkaan aqoon xaajadu galabo waa eex waa maahmaahyo caalamka sidii cadadhuux iyo raaga iyo maahmaahyaha hadalka nuxurkiisa waxaa laga qabsadaa maahmaahyaha gar ninkaan aqoon xaajadu galabo waa eex gudunaan afqabin laguma jaro geeda xoog badan gabagaas buu tiriyey anigu kombyuutar marka ma ahay hadda sano 90 baan ku jiraa wax alla abuurta wixii markii aan dhalinta yaraa aan gabay aqaanay waa tageen gabaga hadda garkunimo caddaadaana iyo guudka timihii nin guyaalo badan joogay oo guumahana gumburiya mugweyn waxaan ahaa geel raacyada gorogii hoose weyn waxaan ku jiray duulguddi ahaa ninkii goobtii joogay baana oogagamba taagnaa talxa maalintuu guuray oogada u weydaartay oo reer garaad garab socday oo geelashii kiciyey ay guurihii kala hadfeen go-aanka reer yuusuf oo celimajeerteen u galay gun jiraana gudaha gaalkacyood baan fadhiyey
gu iyo dayrtiiba gaaliya islaam waxaa xukumay ninuu guddoonshaa gacan qabasho niman baa ahaa hiil wax kuu gala gaabshowna niman baa ahaa guulmadkeeno ah gudumaan af qabin laguma jaro geeda xoog badan gar ninkaan aqoon xaajaduu galaba waa eexe gobernatooraha gaalkacyood wou gadaal mareeye naga geeya gurigii xumaa goorta u yimid mar wuxuu ahaa cabdirasaaq xaaji xuseen qori 11 hala siiye usyiri oo ninkii ka mucaaraday xaajigu gabay la-adligeed iyo habar yoonis ree caynaashe reesugu la caynaashe dhexdooda tegey oo maqdarada gabay laga sameeyo waa waagii gabaga laysu marin jiray reera dudda ah bay ku soo hideen reerihiiba halkaas niman ku soo raaya ayagiina xaggaas baa gogo lagu siiyey nimankaa xagga ah yaa waxaa loo qaray oolo kuwaan laguma talagelin xaaji uu ka mid yahay hablihiibaa waxay yidhaahdeen niman baa halkaas caaway aan ku siinay gogol nin baa u yimid markaasuu war maxaa ahayde warnimo sadcaalahaanu ahay wuu ka laabtay dhexdaas markuu marahayo xaafaddii yo hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoy waa dad isdaardaarahaya markaasuu kabtay xaajigii ragga gabaga heelaynhayoon horayoo qaadaynin oo nagu maajinahayow hadal yaaro weeyaan had qaarbuu ka dhici aadmigii nagu haliilaa halyayga halkaa marahayo heeran baanahay warooy naga hakada yaana doonidin halaakay waxaa dhacday markaa in si fiican loo sooray markii la sooray ninkaanu inuu gabyaa yahay baa la arkay maqdarad baa la dhigay geedaa la waabay halkaasuu ka gabi jiray 5 qaalmood iyo rakuub cagasaxar la yidhaahdo yaa habar yooni soo siisay mar labaad buu laabtay reer hagar iyo dhulbahantuu u tegey sidaasoo kale yuu maqdarad iyo gabayga ka qayb galay 5 qaalmood oo danqad ku jirto baa la soo siiyey nin xaalkiisu dhow yahay iyo nin lagu masleeyo ninkaasu ma ahayn soomaalidu aad iyo aad bay u taqaanaa xaaji axmed fiqi